maanta iyo kuwa iyagoo ka warhayn xumaanta loo qariyay ee la geliyay iyo kuwa siyaabaha faraha badan u soo galay qabiil u soo galay hunguri u soo galay iyo qayb fara badan intaba waan u mahad celinaynaa ee xumaanta ku qabaystay dariiqooyinka kala duwan waxaan jaamacadda cagaaran ay u soo diyaarisay barnaamij in wixii aad samayseen ee xumaanahayd xaalkeedii anagu jaamacadda cagaaran isiin doonto ceebtaad dhibkaad geysateen jaamacadda cagaaran isiin doonto oynu ku bedelo biqilka barakaysan oo ka dhigno bahda barakaysan bahdii aan barakaysnayn inaan ku bedelo bahda barakaysan cabdi maxamed cumar su-aal toos gene waxaan ku weydiinayaa oo jaamacadda cagaaran ay baaraysaa genetic gene asal bay baaraysaa oodan isgaranayn ama aynaan isgaranayn inagoo dhan oon samayno oo jiinkaasi yahay wiilka la yidhaha axmed carab eed ka dooratay western australia ee kuwa sacabka ku tumaya ama kuwa kaa soo horjeeda ay doorteen iyagoon isogeyn waxaa kaa horreeyey tobanyaal boqolaal jeer oo la doortay isagoo la necab yahay oo haddana la doortay oo loo doortay baaba ogaadeenka waxaa dooratay olaf waxaa dooratay wadaadadii waxaa dooratay soomaali galbeed oo mid kasta ay jaamacadda caalamiga ka diyaarisay barnaamij sababtay u dooranayaan maxay tahay ugu dambayn waxaan idhi ama jaamacadda cagaaran qaar kamid a yidhaaheen hadduu yimaado cabdi maxamed cumar australia wuxuu dooranayaa ninkaas iyo ragga lajiinka su-aasha markaan soo gaabiyo cabdi maxamed cumar mudane madaxweyne maxaad u dooratay u sheeg bulshada sababtaa u dooratay u sheeg ogaadeenka sababtaa u dooratay u sheeg xukunkaaga sababtaa u dooratay isaga keliya maaha nooc kasta oo noocaasa iyo kuwa jigjiga aad doorato isma ogin adoon isogay ma dooratay haddaba waa gene genetic DNA ayay jaamacadda cagaaran soo bandhigi doontaa mudane cabdi maxamed cumar kiiskaas 550 laga jaray halka adigu sidaa u isticmaashay oo dantaada ama danta kulliyadda dhaan dargaale qaybaheeda kala duwan waa bulshadu inay ogaato laabudda waa inay bulshadu ogaado waa barwaaqada barnaamijka jaamacadda cagaaran inuu ka bilowdo toga jarrada iyo faafan iyo hawd kabacdina u gudbo africa maxaa ka dhigay xeradii gaajada wuxuu u fadhiyaa uu fadhid u yahay oo loo diiday 2 jeer barnaamijkan aan ka sheekeeyey shacabka soomaaliyeed waxaan ka dalbanayaa odayaasha aqliga saaxiibka u siyaasiga ee noocyaha farabaha kala duwan hadduu yahay itixaad hadduu yahay soomaali galbeed hadduu yahay onlaf hadduu yahay ku rafaacsan halkaa uu jooga hadduu yahay mudane cabdi maxamed cumar ragala shaqeeya kiiskan waa in loo qaado in laga gorfeeya oo la ogaadaa kabacdina jaamacadda cagaaran waxay siinaysaa dhinac dhaqaale aan dhammaad lahayn insha allah biidni illahi kariim waxaan codsanayaa wax alla waxa ugaas garaad suldaan malaaq inay barnaamijka kasoo qayb galaan siyaasiyiinta kala duwan kasoo qayb galaan dhammaan markaas wax laga weydiiyo jaamacadda cagaaran maxay idin diyaarisay dhibic dhaqaale waxaan idin tusi doonaa ama insha allah jaamacadda cagaaran tusi doontaa toga jarreed iyo faafan hal gu keliya inaan ku xidhno biyo xidheen meel kasta beero iyo barwaaqo iyo bashbash aan ka dhigno biidni illahi kariim kabacdina aan u gudbno afka soomaaliga dadka ku hadla iyo kuwa ku hadla xabashiga iyo oromada iyo africa oo dhan balaas caalamka riyaaray maxaad ka qabtaan arrintaa salaamu calaykum jimco wanaagsan